بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan boqortooyada Soomaaliyeed ee ajuuraan meel waliba ay ku nool yihiin dunida daafihiisa. Ajuuraan taariikhdiisa wayna ka warhaynaa, waxay ahaan jireen iyo hadda waxay yihiin. Aniga magacaygu waa Bashiir oo ku nool magaalada Muqdisho. Marka waxaan ahay shaqsi jecel inay boqortooyada Soomaaliyeed ee ajuuraan soo noqoto. Insha Allah kol dhowna mustaqbalka dhowna dhalinteena waxaan dhalnaba ama waxay sii dhaleenba way arki doonaan insha Allah. Haddaan anaga in yar ka taabano, dadkan dhalna baa dhammaystiri doona haddaynu gaarno insha Allah. Hamigeena wuxuu yahay in uu soo noqdo boqortooyadii ajuuraan ee geeska Afrika, asigoo wadanin dhib iyo qalalaaso iyo foodo, oo la mid noqdo boqortooyada Ingiriiska ee hadda jirta geeska Afrika. Waxaynu rabnaa inay ka muuqato boqortooyo soo jiri jirtay, haddana ka jirta, dibna u soo noqotay, la barbar dhigayso ama la baritamta boqortooyada Ingiriiska hadda jira. Falilaahi alxamdu. Baryahani dambe sanadahan dhalinyarada boqortooyada ajuuraan waxay wadaan ololo ishilqaan ah, la isku xiriirinayo, isku keenayo, isdhexgalayo dhammaan wixii ehel u ah boqortooyada ajuuraan ee u dhashay. Aniga shaqsi ahaanteyda ayaan ishilqaamay, waxyaalo badan ayaan sameeyaa. Marka dhalinta boqortooyada ajuuraan waxaan ka codsanayaa inay is-abaabulaan, aysan sugin odayaal, dadka waaweyn, waalidiinta naga waaweyn inaysan sugin, iyaga wax ficil ay ku dhaqaaqaan. Waxaa adduunka horumariya, adduunka sidaad aragtaan waxaa horumari waa dhalinyaro. wax walba hoggaanka waxa bilaabo waa dhalinyaro. Talada waalidka ayaa iskale. Talo waalid waa u soo noqon doona, laakiin anaka ayaana laga rabaa inaan ficil sameyno. Dhalinyaradeenna is-abaabulno, is-hilqaano, waxyaala ficilku oo leh waxtar leh inaan sameyno. Kadib waalidiinteena wixii siyaasadda isku haysta, wixii hami adduunyan leh oo siyaasad ku tacalluqa, kursi ku tacalluqa, in u soo noqono anagoo wax hagaajinay, inaan u nimaano, wada heshiisiino, gogol u dhigno, waxay isku khilaafsan yihiin kala dhexdhexaadino, gartooda meeshaan ku goono, wax walba ninkii meeshii ku habboon aan u dhiibano, aan dhahno bal meeshaan adaa ku habboon, adaana halkii lagu go'aamiyay balna hoggaami inaan dhaho, oo nin waliba meeshuu ku habbooneed aan u dhiibano. Waayo hadhow go'aanka anaga ayay naga go'daa. Waalidiinta naga dhaleena waa inaan anaga kadib aan heshiisiinaa, xilkana u dhiibnaa. Marka dhalinyaradeena sidaasi, marka sideen ku gaari karnaa ficilkaasi aan ku sameyn karnaa. Wax walba waxaa la iskugu keensadaa talo iyo xigmad iyo fikir iyo ficil meel hadduusan ku jirin, maskaxda ay ka imaato, afka laga sheego, wax uu taraa ilaahay subxaanahu ma jiro. laakiin waxaa loo baahan yahay cilmiga iskama yimaado, Allah hagiisa ka yimaado. Talada ma timaado, wax waliba bini aadanka uu ku dhaqaaqay Allah hagiisa ayay ka yimaadaan oo wanaag ah. Wixii xun shaydaan ayay ka yimaadaan. Marka wixii wanaag ah maxaa laga rabaa? Markii ilaahay hagiisa xigmadaas uu ku siiyo, waxaa laga rabaa ficilka inaan ku dhaqaaqo.
gaalka ah waa aragtay maanta markii tiknoolajiyadii wax uu ka hamigiisa maskaxdiisa kusoo dhaco isla markii uu dhaqaaqayaa ficilkii ayuu sameynayaa, uu qorayaa, uu diyaarinayaa, borosaysu marayaa wax walba buug inuu ku qoro diyaariyo si wax fikirkiisa maskaxiyan kadib ayuu dadka la kaashadaa wixii isla sameeyaan jabka wixii way soo saaraan. waana dhalinyaro marka anaga dhalinyaradeenna boqortooyada ajuuraan waxaan laga rabaa inaan isxilqaano shaqsi walba qofkii kheyr leh wadani ah inay boqortooyada ajuuraan soo noqoto raba asigoo fiirinaa halkaa ficil halkaa magac oo ah ajuuraan usan fiirinaynin ajuuraan tafaraaruqus usan fiirinaynin ajuuraan hebel iyo hebel la kala dhaaso aysan dhihaynin u fiirinaya halka magac ee ajuuraan boqortooyada ajuuraan bes. qofka shaqsigaas hamigaasi leh hal abuurkaasi leh waxaan aniga haddii shaqsi ahaanteyda u sheegi lahaa ajuuraan boqortooyada ajuuraan waxaan tala ahaanteyda ku soo celin lahayn ra'yigayga ani hadda ka dhiibanaya muuqaalkayga haddaad aragtaan dhalinyarada kale waxaa iyagana ka codsan lahaa haddii isku ra'yi noqono inay iyagana ficilkaasi ku dhaqaaqaan ay sameeyaan abaabulkaas ay sameeyaan inkastoo adduunyo buris lagu jiro. maxaa ka mid ah marka aniga shaqsi ahaanteyda waxaan dhihi lahaa boqortooyada ajuuraan ficilka la sameyn karo oona qarashka gelinin dhib aan la marinin saxariir aan la marinin waqti badan oona ka dhumeynin. maxaa ka mid ah shaqsi walba horta cilmi bartay kii jaamacad ka soo baxay kii dugsi sare soo dhameeyay hadda adduunku waa horumaray cilmiga tiknoolajiyada la isticmaalaa dhalinta boqortooyada u dhalatay oo jaamacadaha ka soo baxay ama dhigta qaasatan qaar kuwa dhigta computer science ka dhigtay ama computerada yaqaana in ama qofkii cilmi u leh shuruud ma aha haddii ficilkaaba oo sameeyo cilmi badan hata uma baahno inay sameeyaan ay ka bilaabaan qaasatan magaalada muqdisho caasimada magaala madaxda Soomaaliya tolka inta degan inay abaabulaan iyagoona u fiirinin xag siyaasadeed wixii siyaasad wata maxaan dhahay gooni u dhig yaa wixii boqortooyada ajuuraan kuwaas waliba ajuuraan ku tacalluqa adigoo wax ka qaadayna qaarana kugu qora qaarana ka raba aadan dhihinin hal shay bis uun ka soo qaadatid magaca qoys waliba magaciisa saddexan lambarka laga hela aabaha hadduu joogo hooyada haddii joogto qoyskaasi wiilasha ugu weyn wixii xaas leh hadduu aabihii joogin qoyska famil qoys walba inta ugu firfircoon oo mobile isticmaasho qad isticmaasho mobile laga heli karo lambar laga heli karo isticmaal qoyska dhan gabigood in listii la soo qoro inta ka kooban yahay listi loo sameeyo iyaga la dhaho isqora warqadii qalin lacag kama baxayso ay ku diyaariyaan lambar inta laga heli karana ay ku qoraan inta lambar laga heli karana isla magacyadooda ay qoraan qoyska intaana ka koobanahay ay dhahaan hadduu wiil ku jiro qoyska la siileeyahay asaga hataa asagana gooni inuu u baaho qoyskiisa asaga qorto lambar iyo magac qoys walba markuu qoro ala qoys walba xamar inta ku nool markay diyaarsadaan ee qoraan baraha bulshada laga wacyi geliyo la dhaho meel heblayaha ama telefoon ha ku soo diraan qadka ku soo diraan magac walba inay soo sawiraan soo gudbiyaan ama qadka ku soo gudbiyaan ama ha keenaan xafiis lagu soo hagaagay inay u sameeyaan magacyadii dadkii liistidaatadii degmada laga hela degmo oo isku xilqaama degmo walba data ay u sameeyaan ee qoraan ee liisgareeyaan ee xareeyaan data ku xareeyaan dhalinyaro is xilqaantay computer data ay u sameeyaan markay datadaas ku xareeyaan ee korna ugu magacdaraan magaalada Muqdisho degmo xaafad inta qoys degan listigu magacyada telefoonada laga heli karo hadhow markii sida ay sameeyaan haddana
muqdisho duleedkeeda ka bilaabdana afgooyo kale balcado kale ay ku xijiyaan sidaas ay sameeyaan la diiwaan geliyo inta tol ku nool 5 qof hadii ku nool 5 bal laga hayo lambar iyo telefoon magacyadooda saddex lagu daro gobolada dhammaan la gaarsiiyo kolkii la gaarsiiyo kadib baraha bulshada telefishinada kale hadana shakhsi isku abaabulo lama ama hal is abaabusho baraha bulshada hadana laga wacyigeliyo loo warar akhbaar loo sheego la dhaho inta gobolada la diiwaan geliyo oo nala socoto beesha boqortooyada Ajuuraan ku saabsan waxaan loo sameynayaa hoggaan gobol waa noqoto duulo waa noqoto muqdisho gudaheeda hal hoggaan loo sameeyo hal shakhsi loogu soo hagaago ana laga qaadin lacag qarankeena la dhihin wax keena la dhihin dib ama la marin magac lambar telefoon datadaasi dhalinyaro isxilqaanta ay sameeyso hagaajiyaan kolkii hagaajiyaan gobolada dhan hagaajiyaan hadana gobol walba ay u dhigtaan shakhsi ama dhalinyaro shakhsi ah isxilqaama khayr leh wadani ah boqortooy inay soo noqoto jecel soo dhib la marin loo hogaamiyo u dhiibo la dhaho datadaas inta tuuladaas inta joogto ama gobolka inta joogto datadooda lambarada magacyadooda asayna loo dhiibo la dhaho bal haye wixii dheeraad ah soo gala tuuladaas cusuban noogu soo dar noo soo gud markii la sameeyo min gobol Soomaaliya dhan ay gaarto meeshii gobol walibana hal shakhsi dhalinyaro iska xilqaamo loogu soo hagaago loo sameeyo hal shakhsi kadib wadamada caalamka hadana lagu daro sida Mareykanka, Canada, Australia, Sacuudiga, Yemen, Uganda, Kenya, Ethiopia lagu daro gobolaas Ethiopia kala hadan la aado ama la hadlo qofkii telefoonka hay tuulo iyo gobol joogo la dhaho inta qoys boqortooyada Ajuuraan tuulo hebel joogto meesha Ajuuraan ku nool intee waa meel heblaay ololahaas jira bal haye listiina tulkiina inta ku nool hal soo qoro qoys waliba ha soo qoro meeshaas email bartaas WhatsApp ama meeshaas hanu lagu soo hagaajiyo ama hanu soo diro warqadaas la dhaho la diiwaan galiyna data loo sameeyo meesha joogan lagu macdaro waxaas oo dhan markii la dhameeyo inta soo milyan ay gaartaba 2 milyan gaarta 3 milyan gaarta 5 milyan gaarta kolkaas inta la hagaajiyo kadib baraha bulshada xamar xaflad lagu qabto baraha bulshada laga telefishinada laga wacyigeliyo loo bogaadiyo loo sheego akhbaar loo sheego la yiraahdo waxaan ogeysiinayaa boqortooyada Ajuuraan meel walba ay ku nool yihiin ololihii isdiiwaan gelintii ama qoraalkii tolkii boqortooyada Ajuuraan wixii sheegta la qoray wixii Ajuuraan kala qabiil kale ku jira iskaba dhaaf Ajuuraan ka muuqda la qoray usoo noqon doona in la dhaho iidan lagu daro wixii Ajuuraan qabaa'ilada kale ku jiro la qaaraan ah waraha laga qaadaan la sii qalalaasi shub laga dhaho Ajuuraan ka muuqda horta markaan diiwaan gelino kadib loo sheego xaflad la qabto kadib loo sheego la dhaho Ajuuraan kan waxaan rabnaa in la sameeyo qasri meel lagu soo hagaago boqortooyada Ajuuraan deegaan ama xamar dhaxdeeda qasri loogu dhiso qasri weyn la dhiso la hagaajiyo oo meel lagu nasiin lahaa la isku imaan karo lagu shiri karo qof waliba boqortooyada Ajuuraan sheegtay Soomaalida kale free u yahay imaan karaan Google dhigan karaan lagu shiri karo loo sameeyo loo hagaajiyo xafiisan lagu furo kombiyuutar la keeno daatooyinka ku xareysan tolka dhan la dhigo kadib tartiib qasrigaas korka xaflad lagu qabto xaflad markii lagu qabto kadib loo soo jeesto marka la dhaho inta qasrigaas maxaa lagu dhisi karaa marka qasrigaas waxaan ku dhisi karnaa lacag baa loo baahan qarash baa loo baahan qasrigaas maxaa lagu dhisi karaa dadkii daatada la qoray telefoon la qoray la ogeysiiyo telefishin marka la ogeysiyo calashaan
la yiraahdo calaa shaqsi waxaas iyo waxaasan sameynayna qasrigaas la dhisay deegaanka dhulkii waa kana waa muuqda walaalahaasna waa ogeyn oo tii aan wadnay nin walba wuxuu awoodo ha soo diro $2 ba Ilaaha ka dhigay markii lacagaas la aruuriyo dhismihii la bilaabo la dhameeyo oo la hagaajiyo xafladii la qabtay dadka ay ogaadaan baraha bulshada telefishinada ka ogaadaan min dibad ilaa dalba kadib odayaashii siyaasadda isku hayay boqortooyada ajuuraan oo xilka anaa raba dhahay Google loo dhigo lagu casuumo meesha la heshiisiyo khilaaf ka dhaxay wixii khilaaf ka dhaxay boqortooyada ajuuraan in loo isku keeno la heshiisiyo la wada tashto qofkii boqortooyada qasrigaasi joogi lahaa kursi isku fadhiisan lahaa loo dhiibo la wada shiro Itoobiya Kenya laga imaa shir weyn lagu qabto qofkii qasrigaas boqortooyada kursi loo dhiibi lahaa loo dhiibo ogaasida malaaqyada iyo hidii dhaqan leh nin waliba labis u gaar ah lagu aqoonsado loo sameeyo dhalinyarada sidaas oo kale wax walba markii sidaas ay ku dhamaadaan qasrigaasi gumeetariyada dad islaam ka shaqeeyo kadib la sameeyo card ama ID wax la yiraahdo oo beesha ajuuraan boqortooyada dhan dadka diiwaan gashanaa loo hagaajiyo oo mar labaad qarash iyo waxay awoodaan loogu sameeyo la diiwaan geliyo Muqdisho laga bilaabo degmo xaafad wax loo siiyo kaarkaasna uu noqdo kaar shaqsiga la siiyo loogu soo xiriiri karo waxna loogu diri karo asagana uu kula soo xiriiri karo waxna kuu soo diri karo labadiina ba idin dhaxay kaar sidaasna la sameyn karaa adduunka waa casri kaar waxaa jira ID ah shaqsiga sawirkiisa ka muuqda lacagna loogu soo diri karo sida kaarasha la yiraahdo UNT isticmaasho kale oo raashinka lagu bixiyo kale lacag baa lagu soo diraa meel baa kala baxda kaar asagana shaqsiga iska leh loo siiyay asagana kaal kula soo xiriiri karo waxna kuu soo diri karo lambar ka heli karo lacag uu soo diri karo adigna lacag u diri karto markaas meesha waxa ka fiicnaa kaarkaasna uu noqdo kaar labada shaqsi isku xiriirin karo waa maxay xafiiska boqortooyada laga xukumayo ee shaqsi waliba kaarkaas la siiyay inuu direct xafiis ugu soo xirno wuxuu ka caawinayaa musuqmaasuqa isku dhaca shakiga waxaas oo dhan ka caawin kara marka waxa la sameynayaa marka kaar sidaas oo kale marka la sameeyo shaqsi walba la siiyo dal iyo dibadba asigana diiwaankaas oo ku jiro data ay leeyihiin dal iyo dibadba kaarka shaqsiga haysta oo qaan gaar ah la siiyo kadib kaarashaasi markii la siiyo waxayna hagaajino isku xirnaan ismuujino isdhisno is-abaabulno wax walba la sameeyo hoggaan fiican oo sameynay isku xirka bulshada la sameeyay kadib markaas qasrigaasi waxa imaan kara wixii ajuuraankii kala qabaa'ilada kala ku jiray ama ashsalkooda ajuuraan ahaan jira qabiil kala ah ayaa Google loola dhigaa la heshiina ajuuraannimada ku soo noqonayo tuuladooda loo diiwaan gelinayo wixii maxay noqonaya waa isfurfura siyaasad qabaa'ilada kala Soomaaliya Google la dhigto la heshiiyo hadafkan leenahay loo sheego anaga qalalaas inaan la wadin boqortooyada ajuuraan aan nahay dib iyo qaxar iyo qajajacaan wadin laga dhadhicay loo sheego wanaag iyo sharaf aan wadno kii qabiil kale ku jira asalkiisa ajuuraan ahaan jira oo dhaaniga maya meesheedan ku jirnaa xoog ma anaga Google inaan baxno ajuuraan aatihiin balna soo raacno soo gala inaan la qasbin aan lagu qasbin shaqsi asiga iskeenan qabiil walba iyo iskeenan qasrigaas ay imaadaan Google la dhigo haday diyaar u yihiin hadaysan diyaar ahaan la kala ogaado Google loo dhigo la soo dhaweeyo nin walba tuuladu ku sugan yahay tuuladiisa si degnaado mar walba maxay noqonay marka wax walba wanaag kala ariga noqon marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada boqortooyada ajuuraan dhamaantooda
inay isxilqaamaan ee wanaag u horseedaan aysan ku tashanin dadka kale oo siyaasadaha isku haya. wixii siyaasad dowlad ku jira meel ay iska dhigaan. waxayna markaan sameysano wax walba hagaajino dadka siyaasad isku haya aan iskugu keeno dhalinyaranahay aan dhahno warnimay heshiiye wanaaga rabnaa wax walba idin sameyn wax walba idin hagaajinay na hogaamiye inaan dhaho.